عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Science 24. maanta waxaan ka hadlaynaa number system. haddii aan wax xisaabsanano ama wax tirsano waxaan isticmaalnaa numbers, laakiin nambarada wax ku xisaabsanano waxaa jira sistemo wax lagu xisaabiyo ama sistemo fara badan aan isticmaali karno si aan wax u xisaabino. adduunkana haddeerna aynu nool nahayna waxaan haysanaa qalabo fara badan oo ah kombiyuutarro micnaheedu wax ku xisaabsano, calculator wax ku xisaabsano. kasoo qaad waxaad nooshahay 100 sano ka hor ma jiro magalanaysaa adduunkan magalanaysaa qalabadan wax ku xisaabsano dhan ma jiraan. waxaad xisaabtan wax ku xisaabsanana ma jirto oo ma taqaan xisaab wax lagu xisaabsano. dadkuna waxay iska ahaayeen 100 sano ka hor dadku waxay iska dad xoolo u haysta oo aan haysan adduunkan haddeer qalabadan wax ku xisaabsano aan haysan. marka dadku waxay isticmaali jireen markay rabaan wax tirsadaan inay gacmahooda isticmaali jireen. waxa ugu muhiimsan isticmaali dadku waa gacmahooda, laakiin taasina problemku wuxuu ka jiraa markaan haysto gacmahayga aan rabo inaan boqolaal waxaa tiriyo lacagta inaan gacmahayga ku tiriyo micnaheedu aan gacmahayga aan la mid dhigo maadaama aan haysto 10 farood. sidaa darteed waxay isticmaaleen inay dhagax ku bedeshaan oo dhahaan boqol markay tahay dhagax noocaas oo dhagax uu xoogaa weyn markay magaranaysaa 10 tahay dhagax ka yar ay saa xisaabsadaan oo kale. haddaan haysto haddeer oo kale 100 aan haysto aan dhagax hal dhagax magaranaysaa meel dhigi lahaa intaan dhigi lahaa intaasoo dhagaxood. marka dadku xilligaa xisaab ma jirin, xisaab la yaqaan, laakiin wuxuu ahaa hab ka mid ah si wax loo tiriyo. waa berigii dadku ay haysteen xoolo un haayo dadku asan xadaarad aysan jirin. marka maadaama ay ka mid ahayd gacmuhu hab wax lagu tirsado, waxaan haysaa 10 farood baan leeyahay markaan gacanta wax ku tirinayo. markaan ka hadlay xisaabtana waxaynu hadda naqaanaa waxa la yidhahdo whole numbers. markaan whole numbers ka hadlana waxay ka bilaabataa 0 ilaa iyo 9 kadib saas u socotaa. marka whole numbers wuxuu ka kooban yahay waa 0 ilaa 9. marka natural numbers markaan wax tirinayno wax ka bilowna hal baan ka bilownaa. marka taasi waa natural numbers, waa hal iyo ilaa wixii ka sarreeya waa natural numbers. laakiin haddaba aan 10 gacmood haysto haddaan 0 ka bilaabo markaan ka hadlayo whole numbers farahayga waxay noqonayaan gacanta waxay noqonaysaa waa 0 ilaa iyo 4. talabaadna waxay noqonaysaa 5 ilaa iyo 9. marka waxaan haystaa 10 number oo markaan fard gacmaha igu dhigo waa 0 ilaa 9 waa 10 number ay ka koobanta. marka habkan wax ku tirsano maadaama gacmaha wax ku tirsan jirnay waxa qayb waxa loo yaqaano god xisaab ka kooban 10 number ka kooban. marka 10 ka number xisaabta ka kooban waxa la dhahaa decimal numbers. decimal wax kale micnaheedu maaha. decimal numbers waa 1 divided by 10 baa la dhahaa dc. hadda su'aalahan waxaan ka hadlayno meter kale. decimeter waxa weeye waa hal loo qaybiyay 100. haddaan ku dhaho centimeter haddaan waa hal loo qaybiyay 100. mana decimeter waa 1 divided by 10, centimeter waa 1 divided by 100 weey. taa micnaheedu waxa weeye waxay ka kooban tahay decimal numbers wuxuu ka kooban yahay waa 0 ilaa 9. 10 number ka kooban tahay 10 god bay ka kooban tahay 10 number. marka xisaabtani waxay ka timid taqaanaa wadamada carabta bay ka timid systemkan waxay ka mid tahay number systemska. waxaan laga soo ikhtiraacay ama laga soo minguuriyay wadamada carabta sida Ciraaq oo kale. wadamada carabtu xagga cilmiga xisaabta ayay ahaayeen dad aad uga horumarsan. berigii dadku ay ahaayeen xilligii lagu jiray adduunku waa iska jaahiliyad ahaa. cilmiga xisaabinta iyo cilmiga xidiginta waxaasi aad bay uga horumarsanaayeen. sidaa darteed maadaama wadda ay ahaayeen dad magaranaysaa baayac mushtari iyo xoolo iyo wax kala bedelashada iyo ay aad ugu magaranaysaa ugu horreeyeen. wadamadan Yurubta iyo galbeedka wadamadan aan aysan ka jirin ganacsi waxaas ka jirin bay dadkan waxay dad ganacsi bay ahaayeen. maadaama dad ganacsi ahaayeen inay wax tiriyaan baa wax ku hayay khasab ku hayay wax tirsadaan wax kala xisaabsadaan khasab bay ku hayay. sidaa darteed cilmiga xisaabta iyaga ugu horreeyay waxay ahaayeen dad magaranaysaa dadka kale kaga horreeyay cilmiga xisaabinta xadaaradda bay kaga horreeyeen. sidaa darteed haddaad xisaabta eegtid waxaa arkaysaa mataqaanaa tirada wax ku tirso haddaa weydiiso waa maxay waxa lagu odhanayaa waa Arabic numbers baa lagu odhanayaa. waxay ka timi carab iyagu ugu magacday waxa odhanaya Arabic numbers wey. marka cilmigaas waxaa laga soo muguri marka wax ku tirsano decimal numbersku oo ka yimid wadamada carabta waana wax aad u muhiimsan. hadda wax ku tirsano adduunka oo dhan uu ku faafay, adduunka oo dhan uu qaatay, wuxuuna wax adduunka oo dhan common ka. sidaa darteed waa la isticmaalaa decimal numbers marka wax tirsanano. waxaan isticmaalaa decimal numbers oo kale. su'aalahan oo kale haddaan soo qaato markaan inagoo aan dhiganano iskuulka dhexe ama dugsiga hoose dhexe waxaan naqaanaa xisaabta godad baynu kala samaynaa. godka koowaad, tobnaad, boqolaad, kumaad bay isticmaalaa. marka koowaad, tobnaad, boqolaad, kumaad xisaabta waxaynu ka hadlaynaa mataqaanaa godadkeeda oo kale magaranaysaa. haddii hadda nahro 10 to the power of 0 waa godka koowaad waa 1. 10 to the power of 1 waa godka tobnaad waa 10.
tana waa boqol tana waa kun haasoo kale marka haddii aan dhaho marka 10 to the power of 1 haddii aan dhaho ama 10 to the power of 0 haddaan dhaho waa godkooda haddaan dhaho 10 to the power of wax kastoo 10 powerkeedu yahay waa 1 10 to the power of 1 na waa 10kii 10 to the power of 2 na waa 10 lagu dhufto 10 waa boqol 10 to the power of 3 na waxaa noqonaysaa waa 10 lagu dhufto 10 lagu dhufto 10 marka power wax kale maaha 10 to the power haddaan maqartid waa exponentigaas weeye waa exponent 10 kana waa basekii marka decimal numbers wax kale maaha wat 10 number bay ka kooban tahay oo base ku 10 yahay xisaabta wax kale maaha micnaheedu waa base ka 10 maadaama marka base ku 10 yahay waxa loogu magac daray decimal numbers xisaabta wax ku tirsan oo dhan waa decimal numbers oo base ka 10 marka xisaabta la isticmaalo dhan baa khaas haddana inaga wax ku tirsan marka decimal number tusaale ahaan ka tan hayso hadda 5462 dadka dhan way isla wada garanayaan waxaan ka hadlay decimal numbers yihiin aysan hab kale ahayn because waxa jira form kala badan oo magaranaysa wax lagu tirin karo marka tii aan naqaanay ahayd mataqaanaa godadka oo godku waa tobnaad boqolaad kumaad number 2 wuxuu noqonayaa godka koowaad number 6 na wuxuu noqonayaa godka tobnaad number 4 na wuxuu noqonayaa godka boqolaad number 5 na wuxuu noqonayaa godka kumaad marka 5462 waxaan uga jeednaa waxaan u qornaa sida caadeen hadaan kale u qornay sida dadka hore isla fahmaan ama hadaysan habkaan u qornay numbers markaan ka hadlano waxay noqonaysaa base 10 oo ah decimal numbers maadaama base ku 10 yahay oo tahay 10 godka waa decimal numbers waxaan u qori lahayn laakiin dadku maadaama isla yaqaaniin badanaa lama qorto taasoo inaga inuu qaal isla qornaa laakiin waxaanu ka hadlanaa waxa weeye waa decimal numbers habka kale oo kamid ah number system waxa la yiraahdaa binary numbers by micnaheedu wax kale maaha waa labo maadaama ay tahay by micnaheedu labo base ka micnaheedu laba baa looga jeedaa labana lambarna way ka kooban tahay maadaama base laba yahay binary numbers waa labo base ku waa labo waxayna ka kooban tahay laba lambar labada lambarna waa 0 iyo 1 waxayna aad muhiim ugu tahay computerska oo kale markaan rabo magaranaysaa computer waxay afkartaan 0 iyo 1 maadaama mataqaanaa aan rabo inaan 0 iyo 1 tahayna micnaheedu saxan waxa haystaa 24 voltage baan haystaa 24 voltiga markaan haysto haddaan rabo 24 voltigaas way halkaas way tahay micnaheedu waa 1 haday tahay halka micnaheedu 24 volt matalna waa 0 saxan kale guriga oo kale switchka daaro oo switch on oo kale lamadu way daaran tahay waxa waa 1 haday disantahay waxa waa 0 marka wax u dhaxeeyo ma haysto waa 0 iyo 1 labada lambar baan haystaa maadaama labada lambar haysto aad maxaa ugu muhiimsan ka waa binary numbers baan u dhigi karaa halka waa true or false 0 macnaheedu waxa waa off haddaan dhaho 1 macnaheedu waxa waa daaran tahay waa on haddaba taas waxa la dhahaa binary numbers marka binary numberska sida hadda kale aan naqaanay waa tii godadka kale godka koowaad tobnaad boqolaad kumaad marka maadaama godka koowaad uu yahay koowaad base-kuna uu ahaa binary numbers number laba base-ku ahaa labo 10 to the power of 0 waa 1 waa godka koowaad marka godka hadaba labaad wuxuu noqonayaa 10 to the power of 1 waxay noqonaysaa lambar labo haddaan dhaho hal labo exponentigeedu yahay waxay noqonaysaa labo 10 to the power of 2 waxa laba lagu dhuftay waa 4 10 to the power of 3 waxa noqonaysaa laba lagu dhuftay laba lagu dhuftay laba waxa noqonaysaa 8 taas soconaysaa marka minus la waalada plus haddaan dhaho 10 to the power of minus 1 10 to the power of minus 2 taas soconaysaa dhinacna kor bay soconaysaa oo indhib male marka wax xisaabtii hadda oo kale 0 gaas wuxuu noqonayaa waa exponent waa powerka labadana waa base-kii marka xisaabtaas base-ku laba yahay waxa loo yaqaanaa binary numbers macnaheedu ka kooban tahay laba lambar base-kuna waa labo laba lambar ka kooban tahay waa 0 iyo 1 waxay aad muhiim ugu tahay computers marka taas waa binary numbers marka binary numberska haddii aan soo qaato decimal numberka caadiga ah in naqaano oo kale haddii aan haysto hadeer binary numberska la baro waxa soconaya marka haddii 6 iyo 10 waxa soo qaato ilaa 32 waxa soconaysa marka maadaama aan numberada haysto micnaheedu 10 to the power of 1 tahay 10 to the power of 0 was 1 10 to the power of 1 was 2 10 to the power of 2 was 4 waa laba lagu dhuftay laba 10 to the power of 3 was 2 times 2 times 2 was 8 10 to the power of 4 waa laba lagu afar jeer isku dhuftay waa 6 iyo 10 taas oo soconaysa marka haddii aan rabo inaan waxba binary number ahaan u qoro 0 iyo 1 maadaama ka kooban tahay haddaan rabo inaan lambar laba qoro inta dhan ma rabo in 0 bay haas ka haanaysa inta dhan ma rabo marka 1 waxay la mid tahay 1 halkan waxa noqonaysaa 1 1 bay u taagantay inta waa 0 marka haddana waxaan qori karaa 0 1 inta dhan waa 0 0 0 1 binary numbers
haddaan laba inaan qoro waxay noqonaysaa tan waa 0 haataa tan waa hal haataa marka 10 hadda 1 0 bay noqonaysaa 1 0 waxaan u jeedaa marka halkan waa 1 tan waa 0 tan waa 0 tan waa 0 tan waa 0 waa lambar laba marka ka hadlaya lambar 3 haddaan ka hadlayo maxaa ka hadlaya lambar 3 haddaan ka hadlayo lambar 4 haddaan ka hadlayo lambar 4 haddaan ka hadlayo waxay noqonaysaa 0 0 1 marka godkan wuxuu noqonayaa 1 inta kalena waa 0 marka waxay noqonaysaa marka 1 0 0 haddaan qoro bayna numbers waxaan u jeedaa 4 haddii aan qori lahaa tusaale ahaan oo kale 3 haddaan qori lahaa waxay noqon lahaa marka 1 حاجه حتى لو بيها لها تنوم بيها لها تنزل بيها لها waxaan noqon lahaa marka inta la 0 0 hadaba inta qoro kara waxaan noqon lahaa 0 0 0 1 1 ka 1 1 micnaheedu meesha wax kale ma aha 1 ka koowaad waa 1 1 ka labaadna waa 2 laba lagu daray hal waa 3 waxaan noqon lahaa 1 1 micnaheedu 0 0 1 1 waxaan noqon lahaa lambar 3 haddii lambar 4 waa tan ku qoro haddii lambar 4 waxaan noqon lahaa 0 tan waa 0 tan waa 1 waa bayna numbers waxaan qoray lambarada caadiga ah dhis baan markaan qoray hadaa wax baad kale inaad 10 qoro oo kale ama qoro 10 waxay noqonaysaa halkan waa 2 halkan waa 2 mid dhis baan marka caadiga ah min waa 10 kaas waxa weeye 8 lagu daray 2 waa 10 marka halkan 1 bay ahaan lahayd halkan 1 bay ahaan lahayd tan 0 bay ahaan lahayd tan 0 bay ahaan lahayd waxaan qoray marka 0 1 0 1 0 asi caasa qoraasan kale marka daanta aan tusaale ahaan soo qaadana tusaale kale waxaan haystaa 22 marka base-ka inaan qoro muhiim ah maadaama dadku isla yaqaan decimal numbers marka base-kaas uma baahan inaan qoro marka haddii ana iska qoraysaan markaan soo cadeeyo marka waxaan qaanaa waxay u taagan tahay binary numbers tusaale ahaan binary numbers waa la yiraahdaa u bedel waxaan qaanaa 10 to the power of 1 inay ahayd hal 10 to the power of 1 inay ahayd 2 10 to the power of 2 inay ahayd 4 hadina 8 16 taas inay ahayd marka markaan u bedelayo sidii baan hadda ugu bedelayaa u bedel baa lagu 22 binary numbers waxaan soo qaadanayaa intii aan magaranaysa haystay oo kale marka 22 wax kale ma aha waxay ka timi 16 oo lagu daray 4 oo lagu daray 2 intaas marka halkan waxa noqon 0 halkan 0 bay ita halkan waa maadaama aan rabo inaan isku daro 16 lagu daray 4 lagu daray 2 halkan 1 bay ahaanaysaa halkan 1 bay ahaanaysaa halkan 0 bay ahaanaysaa halkan 1 bay ahaanaysaa marka haddaan isku daro hadda waa 1 1 1 0 1 1 0 intaas waxay noo mid tahay 22 hata binary numbers dhisana marka waa 22 qoriya in base kana qoro ma baahni 22 laakiin marka binary numbers aan rabaa inaan qoro 22 maxay noqonaysaa marka 22 base tan waxay la mid tahay waa 1 0 1 1 0 marka halka hadeer hoose waa inaan base ka laba ka dhigaa waa inaan ku qoro hadeer base ka laba waan ka tagay sorry raalaha halka hadeer micnaheedu labada ku hooseysa sida hadeer halkan oo kale in tan base ku tan yahay halka micnaheedu halka hoose ka waxaan ku qorayaa marka base يعني 2 وبيس كان لبا يعني marka inaan ka hadlayo binary numbers waa garanay marka haddii meelaha ku aragtay 10110 micnihi haddii aan haddii halka waxba ku qorin waxay noqonaysaa decimal numbers yani qofku ma garanay decimal numbers ka hadlay musa laakiin halkaas hadda waa inaan ku qoraa base ku inuu yahay 2 sidaa darteed 10110 binary numbers halka base ku tan laba yahay waa binary numbers halkaas ku jira casharkeena oo maasantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wada salaamna dhamaantiin.